Soomaaliya oo xisaab khaldan isku dhufsatay boqortooyada Sacuudigana markan ka dalbatay duqeymo diyaaradaheedu ay geystaan in laga geysto laga fuliyo deegaanada Jamhuuriyadda Somaliland sidoo kalena suuraysatay taswiir inay ku soo gasho Laascaanood inay tahay mid mudnaan iyo muhiimad u leh geeska kale madaxweynaha Somaliland oo kulan la qaatay agaasimayaasha guud ee Jamhuuriyadda Somaliland kulankan waxa uu quseeyay hadallo nuxur dheer oo madaxweynuhu jeediyay barnaamijka ayaynu ku soo qaadan doonaa ku soo dhawow daawashada muuqaalka oo dhammaystiran haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir hore haddaad noola joogtayna waad mahadsan tahay muuqaalkana laygaree wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi oo wareysi siinaya kanaalka Al Jazeera ayaa markan wariyaha wareysanaya Axmed Daif waxa uu weydiiyay suurtagalnimada arrinta dagaal la galo Somaliland oo ay qaado Soomaaliya iyo suurtagalnimadiisa waxa uu si gaabasho la'aan markan u sheegay in qorshahooda koowaad ka yahay wariyaha ayaa markan weydiiyay haddii Israa'iil oo Somaliland aqoonsatay ay ka taageerto dhanka difaaca saanada hubka iyo weliba tababaro sida ay waajihi karaan iyo inay leeyihiin awoodda ay markan ku hujuumayaan waxa uu sheegay inay markaa xitaa la sii dagaalami doonaan oo ay niyad heli doonaan sidoo kalena inta aanay taasi dhicin ba ay dalab markan hor dhigeen dowladda Sacuudiga oo ay ka codsadeen diyaaradaha qumaatiga u kacay Sacuudigu inay duqeeyaan deegaanada Jamhuuriyadda Somaliland gaar ahaan goobaha dhaqaalaha iyo ilaha sidoo kalena ay ka caawiyaan in la duqeeyo la bartilmaameedsado goobaha uu ku sugan yahay loogana shakisan yahay waa sida isagu hadalka u dhigay sugnaanteeda inuu joogo madaxweynaha Somaliland waa qasriga madaxtooyada Somaliland tan oo uu sheegay inay markan fudaydinayso sidii ka dhacday koonfurta Yemen oo kale inay ka dhacdo oo la arko cirro firdhada ama cirro lagu dilay isla goobtii uu joogay hadalkana mar kale muujinay nacayb hub loo waayay iyo sidoo kale nacayb loogu baaqayo sidii saanad loogu heli lahaa Soomaaliya oo tamarteeda aynu ognahay oo xoreyn kari weyday deegaano u dhow Muqdisho sidoo kalena kabalaan ay kaga soo yaaceen kuwii loo igmaday ammaanku aadan yabaal iyo deegaano badan oo ku teedsan isla Soomaaliya gaar ahaan deegaanada u dhow caasimadda dalka Soomaaliya ee Muqdisho ayaa markan isbidaysay inay awood ku soo hujunto geeska Somaliland waxa kale oo jira safar si weyn loo hadalhayo oo markan Xasan Sheekh iyo golihiisa wasiiradu ay doonayaan inay Laascaanood ku yimaadaan sidoo kalena safarkan fariin loogu diro dunida iyadoo la sheegayo in meeshaan ay tahay meel ayagu ka taliyaan sidoo kalena halkani ay tahay halka taariikhan ay Somaliland sheeganayso tan oo ujeedkoodu tahay inay ku beeniyaan arrimo badan oo Somaliland markan geeskeeda ka tagay sida soo bandhigga qariirada Jamhuuriyadda Somaliland oo ay soo wada bandhigeen wasiirka arrimaha dibadda Israa'iil iyo madaxweynaha Somaliland oo guddoonsiinaya ama se tusaya mandaqadan muhiimka ah halka ay dhacdo iyo goobta ay ku taalo Soomaaliya si ay fariinta uga jawaabto markan maalinimadka Khamiista ee soo socota waxa la filayaa inay shirkoodii ku qabsadaan golaha wasiiradu sida ay tibiyeen ama se ifiyeen warar ka soo baxay geeska Muqdisho ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo habeennimadkii xalay kulan la qaatay qaybo badan oo ka mid ah golihiisa wasiirada oo ay ka maqnaayeen xubno yar oo safarro shaqo sida la sheegay uga maqnaa isla Muqdishoba in markan loo baahan yahay safarka kan xiga ama se kulanka kan xiga inuu noqdo mid lagu galo Laascaanood maxaa ka dhalan kara sida Soomaaliya suuraysanaysa kala dhantaal mise waa safar aan wax badan ka bedeli karin ama se wax macnaa ka duwi karin arrintaas sidoo kalena muujinaya ishaynta labada dawladood ee markan midna tamarta daran tahay midna qaran ahaan u jirta ee isku haya deegaankaas oo ah isla gudaha Jamhuuriyadda Somaliland oo gardarro iyo duulaan iyo dhalangadi maskaxeed oo lagu sameeyay bulshada deegaankaasi ay markan sababayso inay u soo horkacaan iyaga lafdigoodu qaybna ka noqdaan mashaakilaadka halka ka jira in lagu dul diriiro dadka ama se la isku dullaayo laftigeeda waxa ka hadashay Puntland oo sheegtay inaanay caqli ahayn in dagaalka loo soo raro mar kale Laascaanood haddii Xasan Sheekh iyo dowladdiisu dagaal ay diyaar u yihiin ay si kale u galaan haddii ay halka geeyaan dhibaatada ugu weyn bulshadaasi dhaxli doonto sidoo kalena aan guul laga keeni doonin geeska Somaliland safarkii kan ka horeeyay ee ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ku yimid Laascaanood waxa Soomaaliya filaysay inuu wax weyn ka bedeli doono niyadda iyo wada socodka reer Somaliland ugu dambeyn waxa uu noqday kuwa ay ku hungowday
kanna waxaa la filayaa inuu noqdo kii oo kale sida wararku sheegayaan haddii ay xaqiiq noqdaanba. madaxweynaha Somaliland ayaa maanta kulan la qaatay agaasimayaasha guud ee xukuumadda Jamhuuriyadda Somaliland waxaanu kula dardaarmay doorarka ay hayaan iyo mudnaantooda. sidoo kale waxa uu daray fariimo cajiib oo ay ka mid ahayd Somaliland inay tahay isku tashi bulsho, Somaliland inay tahay dowlad aanay dhisin shisheeye, Somaliland inaanay ahayn dowlad ay garab taagnaayeen shisheeye markii la unkayay ee lagu hoos dhisay geed hoostii oo ay u tashadeen ummadda reer Somaliland inay samaystaan system iyo maamul dowladeed oo markan dadka iyo dalkaba uu ku caymado sidoo kalena wax ka tara nolosha bulshada. fariinta madaxweynaha ayaa ahay waa kaa horeynaa, waa kaa dambeynaa, waana kaa shishaynaa, waxaanay u dhignayd sidan. waxaana maanta tisiin hogaamiyayaal qaran oo ka mas-uula dowlad la aqoonsan yahay insha allahu. fariinta aan u farayo dunida iyo saaxiibada Somaliland iyo imika cadowga Somalilandba waxa weeyaan taariikhdu waxay qirtay, waxay ka marakacday in shacbiga Somaliland uu qalin iyo qoriba u horay inuu ku difaaco sharaftiisa iyo jiritaankiisa. saa marar badan aynu ku soo celcelinay, agaasimayaasha guud waa mashiinkii shaqada dhammaan wasaaradaha iyo institutionka kale aad joogtaan intaba. waxaana kala cadaynaya xeerarka ayaa inoo kala jeedinaya sida agaasimaha guud ee deegaanku uu akhriyayey responsibilitieska wasiirka, agaasimaha guud, wasiir dowlaha iyo wasiir ku-xigeenkaba. waxaanu jecel lahaynaa wax kastoo kasoo dhasha ama khilaaf kastoo ka dhasha hawshaas in lagu xalilo uun sida uu sharcigu yahay haddii aan la yidhaahdo. agaasimayaasha guud saa aanu sheegnay maadaama ay yihiin injiinkii shaqada, marka waxaa laga rabaa maareynta shaqada, hirgelinta iyo ficilo rogista siyaasadda iyo xeerarka iyo go'aamada xukuumadda inay gaadhsiiyaan dhammaan dadka ay u adeegayaan ay shaqada u hayaan haddii aan la yidhaahdo. dunida horumarku dee wax iska yimaada maaha. horumarku wuxuu ku imanayaa oo ka dhashaa nidaam dowladeed oo ku dhisan cadaalad, dowlad wanaag iyo sarreynta sharciga. marka waa inaynu ummad ahaan aynu ku dhaqanno shuruucda aynu dhiganay. waxaa laga yaabaa ilduuf ku yimaada sharciga ku dhaqankiisa inuu inta badan khilaafaadku ka yimaado. taladiinna inay soo gaadho oo soo dhaweynaya. wixii aad tala haysaan waa ii soo gudbin kartaan, waanay soo gaadhsiin kartaan haddii alla ka dhigo. waxaan ku celinayaa oon xasuusinayaa in siyaasadda xukuumaddu ay tahay anaga go-an tahay inaynu hirgelinno daahfurnaanta oo qof waliba shaqadiisa au daahfurnaan uu ku qabto, la dagaalanka musuqmaasuqa, dayaca mas-uuliyadaha iyo ka hortagga ku tagrifalka awoodaha qaranka. Somaliland waa shacbi dadaalay oo wax soo dhistay oo nabad samaystay oo maamul samaystay. cidina umay samayn Somaliland, shacbigu iyagaa samaystay. geed hoostii bay ku shireen, banaano cidlaa bay ku shirayeen, magaalooyinkooda ayay ku shirayeen. halka Soomaaliya laga yaabo 20 shilin loogu qabtay meel dalkooda ka baxsan. nabad ay samaysteen mid gudaha dalka ka dhalatay weeye, mid loo soo mustaafiriyey ma ahayn. nidaamka dowladeed ay samaysnaa
waa mid ay iyagu samaysteen maantana waxa loo qarsan yahay inay hadday dimuqraadiyad tahay iyo hadday maamul tahayba ay dhammaan qaybaha kale ee dadka Soomaaliya ku hadla iyo gobolkaba ay ka horumarsan yihiin ma odhan karno wax waliba way noo leeyihiin wax badan bay naga dhiman laakiin waxaynu u baahan nahay intaana dadaalkeena aynu ku dadaalay inaynu samayno intan jirta aynu ku dhamaystirno haddii la yidhaahdo maanta dal la aqoonsan baynu nahay waxaa idinku soo kordhi doonaa xiriir badan oo iskaashi oo dalal badan aynu la yeelano marka inay diyaar garowdaan sida u maamuli lahaydeen una maareyn lahaydeen xiriirada badan ee nagu soo socda wasaarad kasta iyo department kasta iskaashigu inta hore ka badanaya marka inuu diyaar garowna looga baahan yahay waxaan kaga tegayaa isku duubnidiinu waa muhiim wada shaqayntiinu waa muhiim mas-uuliyiinta kale dee wasiirada iyo kamid yihiin iyo guddoomiyaashana iyagana sida aanu idinla dardaarmayno waanu la dardaarmaynaa saacadaha shaqadu waa muhiim dalku horumarkiisana way ku xidhan tahay inta saacadood ee la shaqeeyo de waa sharci baynu samaynay minimum qofka shaqaalaha ah ama wasiir ha noqdo ama DG ha noqdo ama madaxweyne ha noqdo waxa weeyaan deyn dadku ku leeyahay saacadaha shaqadu qofka waxa ku waajibay inuu 8 saacadood ha shaqeeyo marka saacadaha shaqada waa la isku dabagelayaa kadib ama wasiir ha noqdo ama DG ha noqdo ama cid doona ha noqdo qofku waa inuu 8 saacadood shaqeeya oo xafiiska laga helaa qofku waa inuu ku talagalo muraadka leh ee danta leh loo adeegaya inuu iman karo 10 subaxnimo oo 1 iman karo oo 2 iman karo oo 3 iman karo aan ku talagelaynaa ilaa 3 inuu shaqeyno taana waynu dee ku dadaali doonaa waan ogahay oo ma hawl yara laakiin waa waajib qofka saaran waana deyn lagu leeyahay 8 saacadood inuu shaqeeyaana waa waajib